dadkayga maanta waxaan la wadaagayaa arrimo aniga qaas ii ah oo maaragtay aan iga qarin karin oo wixina soo gabagaboobeen maanta waxa idin sheegi rabaa sir badan aan muddo qarinayay ayaa idin sheegi rabaa waxa ay tahay mar dhowaan guursan rabaa. gabadha asbuucii ugu dambeeyay soo caanbaxday ee loo yaqaano Najwa Caraale ayaa shaacisay inay is aroosi doonaan youtuberka caanka ah ee Dirisla Cabdi. balse intaan faahfaahinta u galin fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelkeena waa yaabaysa media subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo si aysan ku dhaafin waxyaabo xiisaha badan oo soo geliyo. waa yaabaysa media fadlan subscribe saaro Najwa Caraale oo ah gabar asbuuciyada ugu dambeeyay lagu arkay social media gaar ahaan bartan loo yaqaano YouTube-ka ayadoo oo fiidiyoo la soo duubaysa Dirisla Cabdi oo aan horey looga baran inuu la soo duubo dumarka fiidiyooyo ayaa dadka qaar waxa ay saadaalinayeen in is aroosi doonaan ama saba ay is jecel yihiin ama saba dadka qaar waxa ay commentiga ku soo qorayeen waad isku nuuraysiin Dirisla way ka farxisay gabadhan labadiinu aad ba isku soo baxaysaan wax noocaas ah balse shakiga dadka ayaa hadda 100% rumoobay kadib markii Najwa Caraale ay fiidiyoo soo duubtay sheegtayna in Dirisla Cabdi ay is aroosayaan waliba isla asbuucan gudihiisa ay is aroosayaan ma ahan wax ceeb ah ama sabab wax laga naxo in wiil iyo gabar Soomaali is calmadaan ama sabab is aroosaan balse waxa wax aad u cajiib ah noqotay saadaalinta dadku si saadaaliyaan in labadan qof isku nuurayaan waxaan leenahay Dirisla Cabdi iyo Najwa Caraale hambaliyo 100% waan ku faraxsanahay arooskiina kamana xumin sababta soo bandhigaynana waxa waay in dad badan sii ogaadaan arooskiina waa kan fiidiyowga ay Najwa Caraale ku sheegtay in ay Dirisla Cabdi is aroosi doonaan daawasho wacan wax kasta fiidiyowga aad ka dhex ogaad doontaa. maanta waa maxay mowduuceena waxa ay tahay inaan maaragtay dadkayga quruxda badan walaalahayga quruxda badan aan la wadaago aniga i quseeya maasha Allah waayo waxaan dhahay dadka aad maaragtay u sameeyay YouTube-ka waa idinka dadka maaragtay mar walba wax ii soo qoray waa idinka dadka i daawanay waa idinka dadka maaragtay garabka i siinay waa idinka soo waxaan iri dadkayga maanta waxaan la wadaagayaa arrimo aniga qaas ii ah oo maaragtay aan iga qarin karin oo wixina soo gabagaboobeen soo mar rabo inaan iga qariyo sababta ay tahayna ay idinkaga qari waayeen waxay tahay wanaagiina aan arkay waxaad ii muujiseen maaragtay maasha Allah jacayl badan baa ii noqoteen waxa ii noqoteen dad walaalahayga ah waaba tihiinba walaalahayga يعني waxa wallahi iitiin dad walaalahayga ila dhashay dad maaragtay waana la isku jeedin waana la isku joogin ma ahane wallahi waxa tiin dad walaalahayga kal ilaab wad maasantiin ayaa idin leeyahay markas waxaan ileeyahay maasantiin marka maanta waxa idin sheegi rabaa sir badan aan muddo qarinayay iyo Texas iyo inta waanaya alaska ma ni ka iman ayaa idin sheegi rabaa qaaba wax idin ku sheegay dhan wallahi ma aqaano sababtoo ah inaan maaragtay aan qabto aan ku dhaqaaqo oo maaragtay wax adag ay tahay aad dareemi kartaan inay wax adag ay tahay waxa ay tahay mar dhowaan guursan rabaa. waxaan la maaragtay xataa maalmo dhow niiga maqnaa dhan waxay tahay guurkayga ayaan qorsheynayay mar dhowaan guursan rabaa soo guurkii iyo xafladii iyo arrimihii iyo adduunka waa isku ogtihiin inay tahay maaragtay wax howl aad u badan ay tahay howshaas ayaan ku mashquulsanaa run ahaantiina dee inaan aad ba u xishoonay marka inaan idin sheegana waa muhiim ayay ii noqotay xaggayga marka aniga waan guursanayaa xaflad weyn ayaan qabanayaa insha Allah xafladaas waxaan rajeynayaa inta maaragtay Norway iyo maaragtay Sweden iyo inta maaragtay adiga aagaagan Yurub oo dhan inay xafladda ka soo qayb gashaan waa walaashiin Najwa Caraale xafladeedii waxaan ii rajeynayaa inaan ka soo qayb gal wanaagsan si wanaagsan maaragtay uga soo qayb gashaan farxad ayaa idin ku soo dhaweynaya ma sha Allah waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo